caabuqa dunida sida baan ugu faafay ee coronavirus ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay isagoo wadamo badan oo dunida gaadhay iyadoo daqiiqad walba uu kordhayo dhimashada uu sababay caabuqani isla markaana waxaa xaalad degdeg ah la geliyay dhammaan wadamada caalamka oo dhan iyadoo la joojiyay isku socodkii dhulka iyo weliba cirka sida ay baahisay xalay shabakada caalamiga ah ee World Meteorology ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka cudurkani haleelay ay marayso 321,268 qof isla markaana ay u dhinteen tiro gaadhaysa 13,699 qof iyadoo ay ka bogsadeen 96,006 qof dalalka ugu badan ee uu waxyeelada u geystay fayraskan ayaa kala ah sidan dalka China waxa uu geeriyooday 3,260 qof Italy waxa uu geeriyooday 4,825 qof Iran waxa uu geeriyooday 1,685 qof Spain waxa ku dhintay 1,750 qof dalka Germany waxa uu geeriyooday 93 qof USA waxa uu geeriyooday 349 qof France waxa uu geeriyooday 562 qof South Korea waxa uu geeriyooday 104 qof Switzerland waxa ku dhintay 85 qof dalka Ingiriiska waxa ku geeriyooday 244 qof dalka Netherlands waxa uu geeriyooday 197 qof Austria waxa ku dhintay 16 qof Belgium waxa ku dhintay 75 qof Norway waxa uu geeriyooday 7 qof Sweden waxa uu geeriyooday 21 qof halka Japan uu ku dhintay 36 qof sidoo kale waxa uu cudurkan ka dilaacay qaaradda Afrika iyadoo badanaa wadamada ku yaala Afrika laga helay iyagoo ay ka mid yihiin meelaha wiikii ugu dambeeyay laga helay Soomaaliya Djibouti Ethiopia iyo waliba dalka Kenya